أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بإذن الله تبارك وتعالى وحا خطبتين ويكون سابسنتهاي ملعسنا إنه سورة الأنعام. رالي بعد هان دونتان شيخي لوا جماعة السفر با وكجرا marka khudbadahaygan watoon baan idinkana halkii ka sii waday. marka quraanku runtii wax la isku wacdiyay iyo khudbad bay isaga ugu macaan dhadhan gaar buu leeyahay. ha u qaadanna tafsiir inaynu dhigayno, laakiin quraanku mar walba in macaanidiisa ijmaaliga la ogaado iyo macaanidiisa gaarka labaduba waa daruuri. dadku markay fahmi waayeen ilaahay kitaabkiisa laga durkay fahankii kitaabka iyo barashadiisii ayaa waxa yimid inaynu anbanno ama aynu fogaano ama aynu garan weyno dariiq aynu qaadayno. ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay ilaahay baa mahad leh, ilaaha samaawaadka abuuray arladana abuuray, ilaaha mugdiyaasha abuuray nuurkana abuuray. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwa gaaloobay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay wax la simayaan waa kuwa leexanayo xaq iyo ka leexanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa iyo kaliyeelidiisa. alxamdulilah, ilaahay baa mahad. ilaahay wuxuu ka waramayaa xamdi uu ismahadinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaa ilaahay isku mahadinayaa tilmaamaha dhammaystirka sifaat alkamaal wa nucuut alcadamati waljalaal. ilaahay subxaanahu wa tacaala naftiisa ayuu mahadiyey. samaawaadka markuu abuuray arlada abuuray ayaa ilaahay yidhi alxamdu lilah. macnaha waxay tilmaamaysaa ilaahay awoodiisu inay kamaal tahay, dhammaystiran tahay. ilaahay cilmigiisu inuu ballaadhiyey subxaanahu wa tacaala. naxariista ilaahay inay ballaadhantay, xikmadda ilaahay inay caam tahay. ilaahay inuu la keliyoobay abuurka iyo maamulkaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay la kaliyoobay. iyo in ilaahay abuuray dhulumaadka iyo nuurka labadaba, mugdiyaash iyo nuurka. dhulumaadka waa la jamciyey, nuurkana mid kaliya lagu tilmaamay. marka mugdiyaashu way badan yihiin, laakiin nuurku waa mid qura, iftiinku waa mid qura, waana mid taabanaya iftiin macnawiya iyo iftiin xisiya labadaba. macnaha mid la dareemayo iyo mid la arkayo labadaba uu taabanaya. oo dhulumaadka waxyaabaha la arkayo waxaa ka mid ah habeenkii iyo maalintii iyo qoraxdii iyo waxaasoo dhan waa xis. waxyaabaha macnawiyaadkana waxaa ka mid ah jahligii
iyo shakigii iyo shirkigii iyo macsiyada iyo qaflada iyo waxa la halmaala ilaahay wuxuu leeyahay thumma alladheena kafaruu bi rabbihim ya'diluun kuwa gaaloobay rabbigood waa kuwa ka leexanaya oo inay maaragtay ilaahay kaliya yeelaan bay ka leexanayaan waxay la simayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala cibaadadiis cid kale ay rabbi la simayaan iyagoo ogsoon cidda kale rabbi inaanay la mid ahayn suuradani goorma ayay soo degtay suuratul an'aam waxa la yiraahdaa aayadaheedu horta waa 165 aayadood waxaanay ku jirtaa quraanka kala dhigdhigan kuwiisa dhaadheer bay ku jirtaa diwaalil mufassal quraanka loo yaqaan quraanka dhaadheer quraanka kala dhigdhigan kuwiisa dhaadheer bay ku jirtaa suurada dhaadheer bay macna ka mid tahay tartiibta marka la eego waa suurada lixaad oo shan suuradood oo kala ka soo horeeya suuratul faatiha iyo suuratul baqara iyo suuratul aali imraan iyo suuratul nisaa iyo suuratul maa'ida ka horeeya marka la yiraahdo tartiibta nuzuulka qaabka ay u soo degtay halkay kaga jirto degitaanka waxa la waa suuradii 56aad ee soo degta waxay ka dambeysay suuratul hijr markii ay soo degtay bay ka dambeysay sida qaalibu dhanniga sida loo badan yahay waxa weeye suuratul an'aam inay soo degtay marka sanadii afraad ee hijrada nabiga calayhi salaam bi'thada nabiga calayhi salaatu wasalaam macnaha markii nabiga la soo saaray afar sanadood nabigu bi'thadiisii iyo soo saaritaankiisii ayay soo degtay kadib waxaana tilmaamaya suuratul hijr baa ka horeysa oo amar ilaahay uu ku yimi oo ah fastac bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikiin waxa ilaahay yiri dilaaci waxa lagu amray kor u qaad dacwada kor u qaad baa nabiga lagu yiri calayhi salaatu wasalaam oo dadka gaarsii laakiin markii hore nabiga calayhi salaatu wasalaam 3 sanadood waxay ahayd dacwadu sirriya mid hoose oo meelaha golaha iyo laabada lagu tukado guryo gaar ah la isugu yimaado ayay ahayd dacwada nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadaas baa markaa kor loo qaaday marka aayadaasi soo degtay ee ilaahay amarka bixiyay baa dacwadii lala soo jiharay ibn Isxaaq markuu ka warramay wuxuu leeyahay marxalatul jahri bid-da'wa al-islaamiyya waxa bilaamay buu leeyahay inay rag iyo dumar ba islaamnimadii la soo galo ilaa islaamkii ka faafay magaalada Maka uu ku faafay dabeetana markaas baa ilaahay amray nabigiisa calayhi salaatu wasalaam fasda' bima tu'mar hillaa'i waxa lagu amray wa a'rid 'anil mushrikiin gaaladana ka jeesaba ilaahay subhanahu wa ta'ala arinta labaad ee tilmaamana waxa weeye dabeecada fatradan ay suuradu soo degaysay dabeecadii jirtay habkiisay ahayd sidee wax ahaayeen sanadan ay soo degaysay si aan tilmaamnay waa sanada bi'thada nabiga calayhi salaatu wasalaam afraad weeye fatradaasina waxay fatro ama waqti hirdan uu jiro ama iska horimaad fikri jiro oo la isugu jiro dhufayska islaamka iyo shirkuga ay iska soo horjeedaan oo nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu doonayo dacwadan iyo iimaankan inuu kor u qaado gaaladuna ay doonayeen inay maaragtay ka hor yimaadaan nabigu wuxuu doonayay calayhi salaatu wasalaam inuu ku dhawaaqo runrimadiisa ilaahay la rumeeyo iyo malaa'igta iyo kutubta iyo rususha iyo aakhiro waanu cadeynay nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwan gaalada ayna mu'taqadaadkooda inay difaacaan bay iyaguna dhufayska ugu jireen ولذلك با markay sawirayaan bacd ulama dabeecada ay lahayd fatrada tani dacwadu ka soo gudubtay waxay yiraahdaan waa fatra anifa ashad al-unf wa fatrooyinka ama waqtiyadii ugu darnaa ee muqaawama la isugu jiray la iska horfadhiyay ee dacwada iyo nimanka gaalada ay ahlu shirkiga ay iska hor imanayeen way xilligaas bay soo degtay waxaanu tilmaamaynaa halkay suuradani ku soo degtay جمهور العلماء waxay u arkaan suuradatan inay tahay makiya suurad magaalada Makka ku soo degtay laakiin fariiq kamida waxay arkayaan culimada aayadka 20 23 91 93 ilaa 153 inay ku soo degeen magaalada Madiina inay ku soo degeen ra'yiga dadka xambaarsanna waxay kamilacsadeen aayadahani waxay xiriir la leeyihiin ahkaamta oo dhaminada magaalada Madiina ilaa Makka ahkaam laguma soo dejinayna ahkaam oo dhaminada magaalada Madiina ku degaysay waxyaabaha la xiriira xalaasha iyo xaaraanta
takaaliifta waxyaabaha la isa saaray qofka laga doonayo walidaalika bay leeyihiin munaasab magaalada Madiina ayaa aayaadkaasi ku ahaayeen laakiin sida muxaqiqiintu ay ku tagayaan mufassiriinta muxaqiqiintoodu waxay leeyihiin suuratul an'aam dhammaanteedba magaalada Maka ayay ku soo degtay waxaana tilmaamaya bay leeyihiin aasaarta cadeynaya inay magaalada Maka ku soo degtay suuradda tan dafca waahida bay soo degtay hal mar bay soo degtay waxa kamida aasaartaana waxa laga warinaya ibn Abbas ee uu leeyahay laqad nazalat suuratul an'aam bi makkah laylan jumlatan waahida wa hawlaha 70000 malak suuradda tan waxay ku soo degtay buu leeyahay magaalada Maka habeen baanay soo degtay mar kaliyaanay soo degtay 70000 oo malag baana ayaana hareeraha kaga jiray oo galbinaya suuradda tan ibn Umar oo kale wuxuu leeyahay nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay suuratul an'aam hal mar bay soo degtay waxaana galbinaya 70000 oo malag muxaqiqiinta mufassiriinta culimada mufassiriinta muxaqiqiintoodu waxay leeyihiin markay suuradda tan tafsiirkeeda bilaabayaan ama ay bilaabayaan waxay cadeeyaan suuraddan inay tahay suurad makiya مثلا الإمام ابن كثير وكله marka uu suurada horudhaceeda uu ka waramayo wuxuu leeyahay riwaayaadka ku soo arooray suurada in aayaadkani maki yihiin wax sugan oo sugmay maaha waxa daynaya ma jiraan saasoo kale Suyuuti baa tilmaamaya culimo badan oo muxaqiqiin ayaa tilmaamaysa suuratu al-an'aam waxay ku soo degtay magaalada Maka waana suurad makiya maxaa suuratu al-an'aam loogu magacaabay an'aam maxay tahay الأنعام وحلا إلى هذا وحيابها قابك يلهين ما ركت عدد له وحيوانك كمذا سيد الجيلة يو لؤضة يو أرجع سورة الأنعام وحلا جوا سيد اللوجو بحيه وركاي كلا دقيقة ساعة يا كمذا حوله وحولها إلهي كجوا الرمي الطريقية كلا دون يضع سورة ضوء صور نقنيس سادلاد با وحلا هذا لفظ الأنعام suuradda wuxuu ku soo noqday 6 jeer 4 aayadood gudahood ayaa 6 jeer al-an'aam ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga waramay aayadda koobaad ilaahay wuxuu kaga waramayaa subhanahu wa ta'ala qaybinta ay qaybinayeen beeraha iyo xoolaha ee laba qaybood ay u qaybinayeen qayb ilaahay ay siinayaan iyo qayb ay siinayaan mushrikiin asnaamtii wixii ay caabudayeen ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga waramaya آيات اللباد لفظ الأنعام إلهي سدح جربو كجور رمي وحنا إلهي عضيني سبحانه وتعالى أعماشو دي الدقمدي قال دي آت كأوليتي إن حولها سدح قيبودو قيبين با إلهي آيات دانا كجور رمي وحا إلهي مرصدحات كجور رمي لون أمام مذبك ولها ظلمي أي سمينيان إيه أقوان درودو إيه جهلي حولها calooshooda waxa ku jira uurjiifka ay kala qaybinayeen ba ilaahay uu leeyahay mar kale an'aam ilaahay ugu soo celi waqaalu ma fi butun hadhihi al'an'aam marka ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala mar afraad ilaahay wuxuu ka waramayaa nicmoolayda inuu ilaahayna siiyay oo aynu ka faa'iideysanayno mid aynu cunno iyo mid aynu rarnay iyo mid aynu fulna ay tahay wa min al'an'aam hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakum Allah wa la tattabi'u khutuwat ash-shaytan marka intaas oo dhan maadaama ay ilaahay kaga waramay lafdul an'aam ilaahay ku soo celceliyay suuratul an'aam saasa loogu magacaabay munaasabada ay la leedahay waa maxay suuradani suuradii ka horeysay suuradani waxa ay tilmaamayaan mufassiriintu bacd mufassiriin Imaam Alusi oo kale wuxuu leeyahay munaasabada ka dhaxaysa suuratul maa'ida gabagabadeeda iyo suuratul an'aam bilowgeeda munaasabada ka dhaxaysa waxa weeye suuratul maa'ida ilaahay wuxuu ku gabagabeeyay garsoor iyo cadaalad iyo maxkamad rabbi tabaaraka wa ta'ala oo lagu kala baxay qadaa iyo garsoor suuratu an'aamna ilaahay wuxuu ku bilaabay mahad bimaana markii ilaahay subhanahu wa ta'ala qadihi dhameeyay iyo xukunkii iyo kala saaridii waxa lagu gabagabeeyay maxay waqudiya baynahum bil haqq وقيل الحمد لله رب العالمين آيات داس بي لا معنى تاعي إلهي وحو ليها سورة الزمر دنبيسا waxa lagu kala xukumay dhexdooda xaq baa lagu kala saaray
إلهي بانا مهد سكاله سبحانه وتعالى معناها شقد ما تيوي مناسبة مركز سورة أي سورة الله لا يذهب وسيدا ويانا وحكم كي إلهي سبحانه وتعالى بعد مانيا إلهي با كلا صار يا الضومة مركز با إلهي سبحانه وتعالى مركو كلا صارو أي إلهي وحوت المامية إنه إلهي سبحانه وتعالى ومهدو دنسكليه أيها الأحبة سورة الأنعام وحاكم مقعابي كرناين يتهي سورة الفاضحة للمشركين سورة فضيحة ليسي قال هذا مشركين هي عقل جودة هي طريقة هي هبكة أو فكريان وأنا كعديبة وإلهي باب لي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إلهي مركو سماوات كابور كيسا كور رمي أرلد أبور كذا كور رمي مجديالي النور وأبوري وكور رمي دقالدو إن بلا عقل ينبو إلهي تلمامي وإله عينك وحو أبوري إن كلا حنيان وطريق الحق كلا حنيان وهور راعيان وخالق مخلوق أي سميان إله سبحانه وتعالى وحاسو تكريف له أصنام آن نولين أو دمتي ونفتو النفع الضر مدنا بآنو لهين marka isbarbar dhigayaan ilaahay wuxuu tilmaamayaa maskax inaanay haynin suuratu al-an'am kalimada qul waxay ku soo aroortay 44 jeer qul inni akhafu in asaytu rabbi adab yawmin azim qul ara'aytakum in ataakum adab allah aw atatkum as-saa'ah aghayra allah tad'un in kuntum sadiqin takrark marka qul ay ku soo noqonayso soo celcelinta kelimada qul la soo celcelinaya maxay tilmaamaysaa dhowr arimood bay tilmaamaysaa kow waxay tilmaamaysaa nabiga kaleey salaatu wasalaam quraanka rabbigiinu ka qaadanayo ee aanu nabiga kaleey salaatu wasalaam naftiisa aanu ka qaadan ee nabiga kaleey salaatu wasalaam yahay muballigh gaarsiiye isagoo waxbana ka dhimin waxbana ku darin waxbana ka bedelin وحي إلهي سبحانه وتعالى كسو دجيي أيوم نبي وقارسيني أرنتاسنا وحي رد كتهي أما جواب أيوتهي كوا كشكسن النبي عليه الصلاة والسلام وحكلاكو سوغان قفك مسلم كائنا وقتهين دادك بادضة أهل الضلالات أهل الضلال دادك اللوصان إنا وقتهين فراغ إيا الساحة إيا ميل بنان oo ay dadka ka lumin karaan intaanis aan la siinin dadka ay ku lumiyaan oo aqaayidooda ay ka fasahadiyaan oo akhlaaqdooda ay ka fasahadiyaan ee mar walba xujo iyo dood iyo riixid in hadiya jeeraale la hortaagnaado oo qowlka ilaahay iyo qowlka rasuulka kaleey salaatu wasalaam lagu difaaco suuradani waxay ku bilaabmatay bisiiqati alhamd lillah azza wa jalla ilaahi ba mahadsan alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard waxaana la yiraahdaa shanbay suuradood ay shan ku tahay suuraday shan ku tahay ku bilaabma ilaahay mahadiis wa suuratu fatiha iyo suuratu al-an'am iyo suuratu al-kahf iyo suuratu as-saba iyo suuratu fatir mahadaasina waxa weeye kamalul imtinan lillahi ta'ala والشكر له على جميل نعمه وآلائه في كل وقت وليس في وقت دون وقت إنه إله إسكالي يهي من الشيء الشدى ربي تبارك وتعالى إنه إسكالي يمهدو إن لغا مهد علي دمان قال لها إلهي نعموين كيس وقت كستيل إلهي سبحانه وتعالى لغا مهد علي مدام إلهي نابو ري إن ترسيي إن هنوني عبادي سنوه هنوني waxay mudan tahay in rabbi tabaaraka wa ta'ala loo mahad celiyo maadaama ilaahay dhagax ka dhigin ilaahay subhanahu wa ta'ala aanu geed ka dhigin wax kale ilaahay aanu ka dhigin ilaahay bilaadan uu ka dhigay makhluuqaadka oo dhan adiga lagu sakhiray ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay in makhluuqaadku ku adeegaan adduunyada inta joogta aakhirana hada dariiqa ilaahay qaadato inaad nicmooyinkiisa iyo jannooyinkiisa aad ku dakayso daaril aakhirah aqulu ma tasma'una wa astaghfiru بالآذن كمركو كفق هذا إلهي كليالديس سبحانه وتعالى مركزو كفق هذا الشريعة ربي تبارك وتعالى
wuxuu gudagalaa inuu isagu wax dejisto sharciga ilaahay markuu ka bayro wuxuu gudagalaa inuu naftiisa u dejiyo shuruuc isaga una cajabinaysa dadkii jaahiliyada ahaa markay diideen nabiga kaleey salaatu wasalaam dacwadii iyo khayrkii iyo waxyigii markay diideen xaaladdu waxay la gaadhay awlaadoodii waxay dejisteen inuu ilaa saameeyo in awlaadoodii ay dilaan waxay iyagu ay dejiyeen waxay gaadhay ilaa inay ku fuliyaan dil caruurtii iyagu ay dhaleen oo naftooda arrintaasi u qurxiso ilaahay wuxuu leeyahay qad khasira alladheena qataluu awlaadahum safahan bighayri ilm وحرموا ما رزقهم الله وحخساري كوا أولادودي ديل دليا علم الدرو إلهي وحو كوا رزاقين إسك حاران تنمينيا تقفكوا أولادي سوحو كتشعلي متشرو واحد عضي وكلا إن أمورك له وهو ذو داونا يدجستان وحيابها النفتو ذو أيوقر حسين يقو عقل يوحي كحكومة من أني تشرين إلهي وحلي وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء إلهي وحلي سبحانه وتعالى وحي لهذين وحا نمعولي ذن على الشيء كتيرة وحي قارو تهي كوا يغلب وحاني حاران كتهي كوا يغلدك haddii ay dhimatana waa wada mushaarakaynana ama waa nusimanahay waad garan karaysaa waa xukmi jaahiliya oo tilmaamaya uun hawo wax la raacay iyo intiqaas xaqa haweeneyda hoos loo dhigayo iyo iyadoo meel la iska saarayo qof bilaadan inay tahay oo xaqa raqo kale ay leedahay تشريعات كامركا جاهلية waxay haayeen kuwa dhulka hogaamiye islaamnimada horteed oo aad ugu sii tunta qiimaha ay leedahay haweeneydu iyo makaanada ay leedahay ilaahay subhanahu wa ta'ala sharciga ilaahay sharci adag nidaamkooda iyo hawadooda ilaahay sharci adag iyo waxa ilaahay uu ka soo saaray qodobo aad u adag waa ku dhaleecay wayda bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون متكمل مركا لوغو بشاريه با إلهي مددق وجهك أيام مدوبان جري عرا أيو اسكلين جري dadka ayuu iska qarin jiray waxa loogu bushaareeyay xumaanteeda laba go'aan midun buu qaadan jiray badulinimo iyo ceeb iyo caarbu ku haysta mise ciida hoosteedu galiya ilaahay wuxuu isku soo wada duubo ala saama yaxkumun waxa xumaaday oo baliya baas bay yeeshay waxay xukunka moodayeen baa ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu leeyahay wa idal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat waxa la isweydiin doonaayo maxkamadda ilaahay la keeni doonaatii la xabaal nolodii iyadoo nool la aasay ayaa la isweydiin doona bi ayyi dhanbin qutilat dhanbiga ayay samaysay oo lagu dilay ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala oran doona haweeneydu waxa ahayd mid xuquuqdeeda oo dhammays ku daadsan tahay oo xaq ba aan lahayn sida xoolaha loo dhaxlo ayaa loo kala dhaxli jiray hadduu doono ninku wuxuu guursan jiray aayadii aabo ayuu guursan jiray sa quraanka ba ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu cadaynayo wala tankihu ma nakaha abaa'ukum min an-nisaa illa ma qad salaf innahu kana faahishatan wa maqtan wa sa'a sabila ba ilaahay subhanahu wa ta'ala wa ha guursanina waxa ka dayna dumarku aabayaashina wax ka dayeen dadkii intii hore u dhacday mooyaan arintaasi waxa ilaahay waa arin fool xumo badan oo dhag xumo badan oo cadar rabbi ku jirto dariiq la maro iyo wada wax laga dayana waa tagu xun baa ilaahay subhanahu wa ta'ala حق الميراث يدحل يا وحينا يالته إذا إسكبدابا يدا هكا وربين با سورة وحينا فايدين إنسان قضب كاللحاد إنسان كمركا ولاهي كفو هذا سبحانه وتعالى كتابك ربي مركو كفو هذا السنة النبي عليه الصلاة والسلام مركو كفو هذا وحلفظ هذا حق إلهي حق رسولك صلى الله عليه وسلم حق إلهي حق رسولك لبضوا ويلفظ هذا إلهي وحله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس
إلهي وحوليها إلهي مي وينينت إلهي كمنا سبحانه وتعالى إذ وقت مي وينين أي إلهي إلهي بشر وحبكم السودتشي إلهي كبين أبوته والوعد كنت هذا يا سودتشي كتاب كان موسى كسودتشي هنون كي النور كبوتي دد كبوتي كايا كان كل با إلهي سبحانه وتعالى مركا قفك إلهي وكفو هذا مركا وحو قدقليا جهال وقدقليا وحو ديديا وحيابا عد أو بينات أيو ديديا oo xaqnimadooda uu diiday oo baadil ku bedelaya sida dadka jaahiliyada ay sameyn jireen walidaalika dad badan markay qodobo laga waramo leeyahay shariicada loo eego waxa laga yaabaa inay ka laabtaan ama waxyaabo kale ay ka waramaan oo ay yiraahdaan culimadu ma dhamayo lama sugna iyo xadiisyo daciif ah ku soo arooray maan maqal iyo isagoo waxana aqoon buu lahayn in intaas oo arrimood kaga hor yimaado ayaa laga yaabay isagoo difaacaya waxa ka maskaxdiisa uu ka keenay laakiin ilaah aayadan baa u taalo ma qadarullah haqa qadri ilaahi may weynaynta dhabta ugu dambeyn ayuha ikhwa طريقه kan haqa waa طريق dheer weeye طريقan haq waa طريق dheer weeye wuxuu u baahan yahay acwaan rufaqo macnaha cid ku garab istaagta oo wanaagsan oo ku caawisa sida daraadeed baa ilaahay markuu ka waramay anbiyada nuux ibraahim muuse ciise yuusuf ismaaciil isxaaq iyo غيرهم من الانبياء inta soo dhan baa ilaahay bayt suuratu an'aam ku taxay oo saa ilaahay isugu daba xiriirsa sulsura ilaahay inta dabadeed wuxuu yiri mataqaana ulaa'ika alladheena hada allah anbiyada aan kaaga soo waranay nabi maxamedo waa kuwa ilaahay hanuuniyay ee fabihudaahu muqtadi hanuunkooda aduguna ku dayo oo ka dhanbiil qaado dariiqooda marbaa lagu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam saadaradeed bay tahay qofka muuminka inuu maro dariiqa muuminiinta inuu maro oo raaco manhajka nabiyada inuu raaco laakiin manhajka nabiyada ahayn inuu raaco ma banaana inuu khilaafo dariiqi anbiyada iyo culimada raasikhiinta sida ay sameeyaan dadka mubtadi'ada iyo fusaqada oo waaweynaya dadka dhintay iyo dadka ma aragtay awliyada ay ku sheegaan ay weyneen maaha qofku waa inuu raaco dariiqa ilaahay subhanahu wa ta'ala qodobka ugu dambeeya suuradu waxay ku bilaamatay tawxiid ilaahay oo la kaliya yeelay ay ku bilaamatay sidaas oo kale waxay ku dhamaatay tawxiid waxaan ka faa'iideysanana marka hadii suurada bilowgeedina ilaahay tawxiid iyo ilaahay kaliyeelintiisa kaga hadlay aakhirka suuradana ilaahay ku soo celiyay oo boqoliyo aan ku tilmaamay dhowr iyo konton bayt aayadadan ku tilmaamnay oo jusiya bar dhadhowa hadii ilaahay ku bilaabay kuna dhameeyay tawxiid maxaad u aragtaa muhiimadu waxa way fa tawxiid awalan wa aakhiran marka tawxiidku isaga ugu horeeya isaga ayaana ugu dambeeya waxaana liibaanaya qofka tawxiidka ku noolaada ee ku dhinta sa suuradu ay nihaayadeedu ay ugu soo ururtay qul inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin waxa tirahdaa salaadayda iyo gowracayga iyo noloshayda iyo dhimashadayda rabbi baa iska leh لا شريك له إلهي وحب الله وذاك المايو تاسبا لا يامري مسلمين تنا أنيقا أيها وقوه الرئي ديبا النبي قال عليه الصلاة والسلام اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام وبعثنا موحدين مؤمنين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم احفظنا بحفظك ووفقنا إلى طاعتك وارحمنا برحمتك وارزقنا من رزقك الواسع وتفضل علينا من فضلك العظيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.